كان بيدبو guddigii uu madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdulcasiis Xasan Maxamed Laftagareen u xil saaray inay soo baaraan dilalkii 9kii bishan ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa soo bandhigay hordhaca natiijada baaritaankii ay sameeyeen sida ay ku soo waramayso wariyahayaga Baydhabo Shukri Ismaaciil Axmed guddigan dhawaan madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdulcasiis Xasan Maxamed Laftagareen uu u xil saaray baaritaankii dilalkii Baydhabo ka dhacay 9kii bishan ayaa maanta shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada Baydhabo waxay ku soo bandhigeen hordhaca baaritaanka ay kiisaskaasi ka sameeyeen goobta baaritaanka hordhaca guddiga ay ku shaacinayeen waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka garsoorka iyo cadaaladda dastuurka arrimaha gudaha amniga gudoomiyaasha degmada gobolka Baay iyo taliyaasha ciidamada qaybta 6aad iyo kan booliiska koonfur galbeed waana xubnaha baaritaanka dilalkii dhawaan ka dhacay madaxweynaha u xil saaray wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda koonfur galbeed Maxamed Xuseen Xasan oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay in dhowr ruux loo soo qabtay dilalkaasi xabsigana ku jiraan isla markaasna dhawaan ay soo gabagabeynayaan baaritaanka ويدان داشي يمي ودانا بارس سابسن عندوي سقاط كودين بلون سقاط كودين بدلهم هذا بنان شيء سابسن عيتي لو كيس هاي سلايد سجل طبعا وديجا بارس تسوي ودا ودي نسكجرا هاي وزير جنرالا هير الميليتري بوليس لا يلو نامو في قول كيلو وزير ودهان ما بدها وزارة الدستوركا وزارة العدالة بأبنية جودكان أولاً كتلا كلمة هنا إن باريس زوجان بعد تاني ونقوم صارن طبعاً باريس تقولي درجة ما يله هلاين ليس أو لكتوه ما هي بنبينياش فلك جيسلين قال كمية إذا البوليس ك يحقق بدن ما له حتى كحقسة قال كمية أنا ولد بالسعودي ولد بالتيمين ولوبي وقرنا ما يشغلن بشوينت أو كونفرد البلد إنه لن يخرجهم من الحبار ضدنا sidoo kale guddiga ayaa waxay sheegeen in qofkii faldambiyeed ka geysta magaalada Baydhabo sharciga lala tiigsanayo baaqiya oo guddiga kala galeejar iyo jeediyaan baaqa soo lan walba oo dambiile oo dambi galay ku gal qof muwaadin oo konfurad Baydhabo ma deedoontin us dhaxalka qabiilka oo ka dhuumada qabiilka ma deedoontin us dambiile كهوبو أو سقابلان دفعة وأنك من مدحويني لا يوجد جسم طبعا ما يهلن جدا بيلجا لأن جدا بقولوا جدا بيلا إن جدا بدي يسوي لك كذا وقابلنا صارنا لأن أرنا هبل إسقالنا لأن أرنا جدا بقول وفقا لإن الحكومة ده شرعي الهوش هنا ولا يسموه تيسون الكذا وأنا ما فلان هالسعادة يعني آدم نقطة يجيك بداية بقية بس عضواني آدم ما يبغى جوا ودونه باريستان يهول قلك دلالة لا يوقفن كدم بي أو لكتوه معي يقولون إن كلها يدمجون أو أوضاع ما يبغى لنا هذا نيجي دقيقة مين يهرب بالشقة يهول يسوي ده ما كبار سيد فلان أو كل بين جودي ينقال إلا كي والدليل فدي إصلاح هاي إما قبل ده بدل الجلسة وضياش كان كلا الدخول ما يوصي حين وبرارين أو من قبل لن دنبيله يقول إن قبل دون يريد إن قال دون ku dhawaad 8 ruux ayaa Baydhabo iyo duleedkeeda siyaabo kala duwan looga dilay 9kii bishan waxaana kamid ahaa shakhsiyaad kala dilay Ali Marguus oo ahaa ganacsade koonfur galbeed Shukri Ismaaciil Axmed RTN Baydhabo